kalfadhigii baarlamaanka dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo maanta ka furmay xarunta golaha shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa hareeyay buuq iyo sawaxan ay bilaabeen xildhibaanada ku kacsan guddoonka sare ee baarlamaanka dawladda Soomaaliya kadib markii gudaha xarunta uu soo galay gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe xildhibaanada oo badankood isku meel wada fadhiya ayaa jaanta isla haleelay sacab iyo foori iyadoona xildhibaanada ka soo horjeeda guddoonka sare ee baarlamaanka dawladda Soomaaliya ay ku qayliyeen eray liddi ku ah Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa muddo ka badan hal saacadood wuxuu fadhiyay kursiga shirkidoonka asaate uma suuragelin inuu eray yiraahdo waxaana ammaankiisa sugayay ciidamada midowga Afrika iyo kuwa ka tirsan dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya saxaafadda oo markii hore kulan goobjoog ka ahayd ayaa dibadda loo soo saaray waxaana daqiiqada kadib xarunta golaha shacabka Soomaaliyeed ka soo dhaqaajiyay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo tiri xildhibaanaha oo isagu taageersanaa wuxuuna Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe intaasi kadib uu saxaafadda kula hadlay guriga uu ka degan yahay xarunta madaxtooyada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya wuxuuna si lama filaana u sheegay in xukuumadda Umar Cabdirashiid ay dhacday isagoona eedeyn u jeediyay maadaama horeyba maaragtay dastuuriyan ay iska dhacsanayd xukuumaddii kalsoonidina soo weydiisan weyday xildhibaanadii waxaan ka ogolaaday in codka la qaado 318 xildhibaan ayaa timid qodobka 12aad farqadiisa sideedaad sagaalaad tobanaad ahadiga waxa uu qorayaa in xukuumadda kalsooni soo weydiisan weydo dastuuriyan haddii kalsooni soo weydiisan weydo ayadaaba iska dhacday sidaas daraadeed haddana kalsoonidii baarlamaankii 280 xildhibaan gacanta ay taageen waxay kala noqdeen kalsoonidii 30 xildhibaan xukuumadda ay codkooda siiyeen 8 xildhibaan way ka aamuseen sidaa daraadeed xukuumaddii waa dhacday madaxweynaha waxaan ka sugaynaa waxaan ka rajaynaynaa in uu soo magacaabo xildhibaanada ka soo horjeeda guddoonka sare ee baarlamaanka dawladda Soomaaliya oo iyana kulanka baarlamaanka sii watay ayaa guddoon cusub oo ku meel gaar ah u doortay nin ugu daweynaa ee baarlamaanka ka tirsanaa iyagoona sheegay in muddo 25 cisho gudahooda kadib ay ku soo magacaaban doonaan guddoon cusub oo bedela kii hore sida ay hadalku u dhigeen